بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 255 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamku ay tahay 19 bishii sagaalaad Ramadaan sanadka 1441 isla markaana waafaqsan 12 bishii shanaad sanadka 2020. waxaanu ku jiray Ramadaanka iyo axwaalihiisa iyo qaybihiisa kala duwanaa ayaanu kulba qayb ka soo hadlaynay. qaybtii noogu dambeysay waxaanu soo xidhnay oo ka hadalnay suxuurta iyo fadaaisha ay leedahay. waxaanu sheegnay inaanu inta dambe aan u khaas yeeli doono laylatul qadarka iyo wixii ku saabsan iyo zakaatul fidriga. maanta waxaanu qaadanaynaa xadiidkii koobaad ama qaybtii koobaad oo ku saabsaneyd laylatul qadarka. waxaan u qaybin doonaa insha allahu tacaala axaadiidtaas laylatul qadarka, axaadiidta ka hadlaysa laylatul qadarka keligii ilaa 19 xadiid ilaa 20 xadiid bay gaadhaysaa. oo tusaalahaan xadiidkan hadda maanta aanu qaadanayno kale: man yaqum laylata alqadri iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambihi, iyo wixii ku saabsan axaadiidtaas ayadoona la soconin maaragtay ramadaan sheegitaankii aan la soconin. waxaan u kala qaadaynaa, ma wada akhrisanayna, ma wada qaadan karno, way fara badan yihiin. marka qaybaanu kasoo qaadanayna. waxaan u kala qaybinaynaa qaybta koobaad axaadiidta kusoo aroortay fadliga laylatul qadarka ayaanu kow ka dhigayna. maanta aanu xadiidka koobaad qaadanaynaa. waxaan ku xujisinaynaa idan mawduuca kusoo xiga ah maa yuqaalu fi laylatiha. laylatul qadarka qofka ilaahay la kulmiya oo garansiiya waxa inuu ku ducaysto ay habboon tahay ama ay fadli badan tahay. qodobka saddexaad waxaan ku xujisiin doonaa maa warada annaha fi lcashri alawaakhir min ramadaan. axaadiidta kusoo aroortay laylatul qadarku 10ka dambe ramadaanka inuu yahay baan haddana ka hadli doonaa. haddana waxaanu ka hadli doonaa qodobka afraad, axaadiidta kusoo aroortay in laylatul qadarku 10ka dambe ramadaanka habeenihiisa tirada isdheer oo 21 23 25 27 29. haddana waxaan ku xijisiin doonaa insha allahu tacaala qaybta dhahaysa ama kusoo aroortay axaadiidta si khaasan nabigu u baraarujiyey 25-ka 27-ka 29 nabigu si geesaanad u sheegay. waxaan ku xijisiinaynaa oo kale oo gabagabo kaga dhigaynaa maa warada fi calaamaatiha, axaadiidta kusoo aroortay calaamadaha ay leedahay laylatul qadarka. idan qaabkaasaan u samaynaynaa. idan qaybta koobaad maa warada fi fadliha ma wada koobi kara, mid kastaba waxaan kasoo qaadanayna hal xadiid ama 2 xadiid baan kasoo qaadanaynaa. idan xadiidkeena maanta bukhaari iyo muslim baa soo saaray, waana xadiid saxiixa. lafdigan aanu dooranaya qaadanaynana bukhaari baa iskale, waa 30 raqamka xadiidka 35. abu hureyre radi allahu tacaala canhu wa ardahba wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yihi: man yaqum ninkii istaaga laylata alqadri, habeenka laylatul qadarka ninka istaaga, iimaanan rumayn iyo waxtisaaban ajir dalab, gufira waa la dhaafi lahu asaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ayaa loo dhaafaya. idan waa xadiid cadiima wey, kuna tusinhaya fadliga ay laylatul qadarka ay leedahay. laylatul qadarka suurad dhan baa kusoo degtay oo ka hadlaysa, oo suuratul qadri la yidhaahdo. fadliga uu leeyahay wuxuu u dhigmaa 80 iyo dhowr sano qof cibaada cimrigeeda maarata qof la siiyey cibaadadii ayuu ka fadli badan yahay halkaa habeen. idan marka 1000 shahrin buu ka fadli badan yahay, marka 1000 bilood oo 80 iyo dhowr sana wey. haddaba xadiidka haddaan usoo noqono, xadiidka 2 shardi baa lagu sheegay. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: man yaqum laylata alqadri iimaana waxtisaaban. habeenka laylatul qadarka qofka istaagaali. istaagu muxuu yahay? waa qiyaam daaca loo istaagahayo wey. ama salaad baad tukanaysaa, ama qur-aan baad akhrisanaysaa, ama waad ducaysanaysaa, ama adkaar baad akhrisanaysaa. waa qiyaamun habeenkii aad kacday. habeenkii aad kacday, marka kicitaanka habeenka aad kacday daacaad u kacday. idan salaad baad tukatay, adkaar baad akhrisatay oo waad wardiday, ducaad ducaysatay, qur-aan baad akhriday. intuba qiyaamkii bay soo gelaysaa. qiyaamku
إني صلاة كليل تكذا ما صلاة دي تكشذ دي يعني أذكارتي قرآن أخرسكي دعادي أنتم واقيام ويان قف كسا وكعايبين كليلة القدر شردك كوباد إيمانا رمين وي رمين هيا بوعد الله إلهي يبوه يسي بلنقاد كيسا نك أرنك الله يمادا ثوابي أجر نسين هيا رمين ورميسين هاي ليلة القدر كحقنمة كيسا رمين ورميسين هاي صيام رمضان يواجبتان كيسا رمين ورميسين هاي انت أصعد نساق رميسان ساوي استاق شردق اللباد واحتسابا أجر طلب احتساب وحالي هذا وطلب وي طلب وكذل بها الله سبحانه وتعالى أجر قيامك ويستاق هيو يا صلاة داس يا أذكارتا يا قرآن أخرسك يا داعي سابنك ويستاق هيو وإلهي أو دوان هيو أجر وكير سنة لبدا صار شرطيا الإيمان إيو الاحتساب لبدا صار شرطيا إنه إلهي أجر كقتل بهايو عبادة يا ضاعة قيامك وسمين هي لبدا شرط إنك لقاه غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه سهر مريبا الله دافع بالي بشارع عظيمة ويا حقيقة يحافز دافع إنه قفكو قيام الليل رمضان كأوبضيو وهبيك الليلة القدر كسو وافقه ووحيابا كل لنكر ويان إذا هو بلنقاد إلهي سبحانه وتعالى نو بلنقاد هيو نبي أننا نوشيغ هيو نينكي استاغ ليلة القدر إيمان رميسان يهي يا طلبوا إلهي كقدل بها أجر دنبقي سورة يا الله دافايا فضل آذيات عظيم هو أويان فضل آذيات عظيم وأوي إذن marka halka waxaan rabaa inaan naftayda naftiina baan ku baraarujiyo inaanu istaagno aan daacada badino maanta waa 9 caawa waa 20 bari 20 bay noqonaysaa bari wixii ka dambeeya 10 ka dambe ramadaanki baa bilaabmay waxaan la shaka nusuusta adkaysay saanu arki doono inuu leeyahay qadarku 10 ka dambe uu ku jiro haba si kala duwanaadeen marka waxa la shaka hadana ay culimadu dhahan ninka 10 ka dambe ba istaaga وهبين كسته أو طبعا كدنباء قيام الليل ويستاجه إنه ليلة القدر لكل ما أما هجرته وإلهي مركها وفاها أتصو وبمعنى هجرته أما يسجرن إذا مركا إن أنه كد ذا لأرنك عبادة ذي ساس من يقوم منك يستاجه ليلة القدر يبينك ليلة القدر كأنك يستاجه ضاعي عبادة ويستاجه إيمانا رمين ورميسيه إلهي بلنقات كيسة يهبينك ليلة القدر حقنمة كيسة يا رمضان كواجبتان كيسة إيمان ورميسيه واحتسابا أجر طلب وإلهي أجر كقدل بهايو رياء استصصنا إن كتشر غفر له وحلو دافي ما تقدم وحي هرمري ومن ذنبه ساء إذن إخوتي في الله أرنكاس أنه كد ذاله أرنكا أنه كد ذاله وحال سؤال إبان إيسا إنه قفك إسوي ديو ذنبي قال لي يدي والله دافي مكبائر iyo saqa dambi weyn iyo ku yar iyo wax oo dhan miya masawa qayb kamida weey dhinaca markii laga fiiriyo maadaas waa mawsuula li hadalka luqada carabiga garanaya maartay asmaada mawsuulaadka ana min alfaad al-umum weey halka waxay keenaysaa inuu dambi yar iyo mid weyn ba loo dhaafibo xadiidka daahirkiisa ku tusinaya laakiin nusuus kale ayaa khasisaysa oo ku tusinaysa in saqaa'irta loo jeedo كبائرته waxay u baahan tahay maartay toobadkeen bay u baahan tahay oo xuquuq bini aadam hadii ay inaad iska celisi iyo wixii la midka ahadiita khasisaysa maxay tahay inuu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam hadiis saxiixa as-salawaatu al-khams wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir salaadaha shanta iyo ramadan ila ramadanka kale laga gaaro waxay dhaafahayaan maartay سيئات مكفرات ذنوب تأيي دافعيان هدي لغا فغاده ما أرتا كبائر هدي لغا فغاده مكفرات لما بينهن انت ودحيس أي دافعيسا مكفرات نغنس إذا اجتنبت الكبائر كبائر هدي لغا فغاده وي إذا حديث كاس وحو كتوسين هيا رمضان إلى رمضان كلا لغا قادي صلاة عشان توحي لغو دافعين صغائر تاهي دي كبائر لغا وكبائر توبت كانوا باهمت المهم هو موضوع كلا علماء سيجيسانا وغادرش إذا لا شك إنه قف مسلم إنه كد ذا مركا شرع محمد صنع حديث فضل جهبين كليلة قدر كولهي لسد مدافعه يقيمه ولهي إنه كد ذا له إلهي سبحانه وتعالى وحودي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حق نتصنون رزاق حق راعتان كيسة
iyo fadliga habeenka laylatul qadarkana ilaahay uu nawaafajiyo waxaan ku soo gabagabaynayaa intaan darsiga dhamaynin walaalaha qaar kamid ah cabasho soo qadimeen oo waxay xadiis u gaadhay waxay dhahan raqamka xadiidka aad ku sheegtay maartay codka qoraalka kuma soo dirtay bay dhahan laakiin arrinka waxaan u malayn waa intuu walaal arkay mooyaane weli kama tegin maartay waxaan codka ku sheego oo qoraala maartay oo raqama ayna waan ku sheegaa qoraalka markaan soo qoray oo tusaale ahaan hadda waxaanu qaadanay xadiidka 255 yaan codka ku sheegay qoraalkana saasuu noqon doonaa biidnillahi alkariim sidoo kale xadiidkii ugu dambeeyay aanu qaadanay shalay oo maartay aanu qaadanay wuxuu ahaa 204 maartay 450 buu ahaa kii ka horreeyay 253 buu ahaa kii ka horreeyay 252 wahakada idan codka raqamkan ku sheego qoraalkana waan soo dhigaa marka waxaa laga yaabaa walaalka mashiinta uu haysto ama qalabkaas inuusan qoraalka usoo wada saarin oo qaybo kamida uu ka gooyo yaa suurtagala marka cid kastoo arrintaa ku dhacdo ay la soo socodsiiyo si khaasaaneed marka si aanu mar kale aan ugu diro insha allahu tacaala hal mar baa xadiidka aan ku celinay akhriskiisa الحديث 255 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته